haddaanu nahay Isimada sool sanaag iyo cayn waxaanu cadaynay oo hore u cadaynay oo mar walba cadaynay oo haddaanu cadaynaynaa inaan Somaliland dawlad la lahayn wax heshiis la gelin waxaan Soomaalinimo ahayna ay naga dhaxaniyo islaamnimo iyo darisnimo waxay dalkayaga ugu soo duuleen oo isaga soo galeen oo intaasoo sanadood ku joogeen waxaanu diidaynay dagaal na dhex mara oo dhiig uu qulqulo waxay kaliftay in kaarayaashii laga soo qaaday Gabiley Tukaraq la keenay waxaanu la yaabsanay waxay rabaan waxaanu la yaabsanay waxay sheeganayaan waxaanu la yaabsanahay annaga idin xukunno annaga naga mitiin dawladayadana waad ku khasbantiin hadaa diidaana waa idin laynayna qarnigii 12aad baa lagu jiraa adduunka wax sida u dhaqma lama arag adduunka oo dhan wax saa u dhaqma lama arag Soomaalina daaba dad aan walaalanahay derisna nahay waxna aan wada samaysan waxna aan ku heshiin oo annaga iyo dhulka yagaba sheeganaya duulaamana soo qaadayay intaa arinta maanta u dambaysa ee sii socota Tukaraq la sii wado la saanood wada xaraysan tahay yaanu ka hadlaynaa waxaan beesha caalamka u sheegaynaa annagu Puntland baanu wax wada dhisanay annagu Puntland baanu heshiis galay annagu Puntland baanu wax la samaysanay laakiin walaalaha yaga waqooyi heshiis kuma nihin lamana aanu heshiin wax walaalnimo iyo Soomaalinimo ka sokaysa oo aan wada galay ma jirto boqor Cabdilaahi Axmed Cali iyo garaad Saleeba garaad Maxamed ayaa iyaguna telefoonka kaga qayb galay shirkaasi waxa ayna dhaheen horta xadka la sheegayo nimanka Soomaaliland ku hadlaan xadku waa labada gaataba Ingiriis dalka uu wada xukumay nimanka Soomaaliland Soomaalidka loo yaqaan anuu soo kumadihin dawladda loo wadaagno lama angisan wadiifo lama lihin